subax wanaagsan waxaan saaki doonaynaa haddaannu nahay dumarka ree isku filan inaan idiin soo bandhigno baahida uu degaankeenna u qabo dhismo iskuul oo ubadkeennu wax ku bartaan taasoo lagama maarmaan aannu u aragnay haddaannu nahay dumarka ree isku filan waxaan dareemayaa inay dhammaanteenna wada qusaysa arrinta ku saabsan waxbarashada ubadkeenna ujeedkeenna maanta iyo soo gudbinteenna waa arrinta ku saabsan dhismaha iskuulka carruurteennu wax ku bartaan eeda saxan eta deegaankayna maadaama dadkiyo hataa kanagadan muhiimna walibaan ana intii awlaadaynayo helan iskooliyo walka baradan walina un islana tallaabo eedan muhiimsan to iyo ku fayl la qaada lahaayna male dhismowka iskuulkana maybaanu ku osadaane arrintan intiisan ogolaatan hob isan etin golo deegaanka isku filan si fiican adeer khayr allah ku siiyo hadalkaaga aad iyo aad baan u fahanay waana loo baahan yahay gabdho sidaa bulshadooda uga hadli kara oo danta guud sidaa uga hadli kara adeer adiga khayr allah ku siiyo annagana ka bulsho ahaan iyo odayaalba aad iyo aad baan u fahanay gabadhaa hadalkeeda aniga waxaan ku darayaa carruurta deegaankeena haddii ay waxbarasho seegaan inay arrintaas beri anaga naloo eersanaayo waxaa waajib nagu ah inaan ka hadalno oo aan ka shaqayno sidii loo hergelin lahaa dhismaha iskuulka nuxurka hadalsha wal sheegi way baa ka adkeeyey in golo usoo noo waafaqa hajeediyowka hadalkaana waayo waa dan guud waliba unu ka hadalhaynaa mustaqbalka awlaadana beryeyti ma in sheegana awlaada haddii iyo walbarashadoonu ka fikiri wayna oona ka dadaalo wayna sidii iyo an helo lahaayeen iskuul iyo walka baradan walaalayaalow arintun aylan dhayalsanoy eed iyo muhiimninkeetoon marka maylan baahayaa in la dadaala walkasta xoogga la saara waa muhiimadda oo inka wiin waaye in awlaadana iyo heleen walbarasha gorotana doogay waan fahanay marka hore waad mahadsantihiin dhammaantiin dumarka reer isku filan aad ayaan u soo dhowaynayaa aragtidiinna dumar ahaaneed ee aadka iyo aadka u wanaagsan oo ku saabsan daryeelka ilmaha gaar ahaanna iskuul in loo dhiso carruurta reer isku filan si mustaqbalkooda loo hagaajiyo oo ay waxbarasho ku filan u helaan waalidiintuna ay waajibaadka ka saaran barbaarinta iyo waxbaridda ubadkooda ay u gutaan waana arrin allayleh aad iyo aad iyo aad loogu farxo bal suga horta bal aamusa waxaanse idiin sheegayaa akhyaaray dhismaha iskuulka cusub oo aan ka dhisno haddeer deegaanka isku filan suuragal maaha sababta u kaadiya haddee hadal kama dheera sababtoo adeerayaalow ii kaadiya aan ismaqalno akhyaare sababtoo ah qarash looma hayo lagu dhiso iskuulka aad ka dhawaajiseen waa runoo muhiim wuu yahay laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa madaal meeshuu yaalluu ka beegmaa ma fahamteen iskuulka waa deegaanka iyo carruurtaba waa u baahan yihiin laakiin qarash looma hayo intaa ma isla fahmin suurtagal maahay taasay walle waayaal hadde hadal wuxuu nuxurkiisu waxa uu suuragel yahay ama uu waxtar leeyahay marka layska maqlo waxaa horay loo yidhi ninaan run sheegin been baa u kaydsan ma garatee marka xaqiiqada inaan ka hadalno waa lagama maarmaan akhyaaray sidaa daraaddeed ayayna suuragal u ahayn in aan haddeer dhisno iskuulka magaaladeenna marka haddee runtuna waxaa la yidhi ragga kama nixiso haba qaraaraatee runta lagama leexdo iskuulka waa loo baahan yahay barbaarinta iyo waxbaridda ubadka waa loo baahan yahay waa mas-uuliyadeenni waa mustaqbalkii dadka iyo dalka iyo deegaanka laakiin wakhtilxaadirkan yaan indhaha iyo dhegaha laystirin qarash looma hayo عجائب وحسميين عروتين وحبرشة وباهين إنا ميلسنا waa qasab waay hagaag waa sax haddeer hawl ku saabsan dhismaha iskuulka qaras looma hayo anigu arrintaa waxaan ku raacsanahay warsame markaa walaalayaal saa ula socda dhaqaale xumo ayaa jirta gabdhow fikirkiinu waa mid aad loogu riyaaqo balse qarash ayaa loo baahan yahay horaa soomaali waxa u tiraahday meel hoo u baahan hadal waxba kama taro waayahay waa dhab sharmaaka waad mahadsan tahay anigu waxaan u malaynayaa akhyaaray in warkaasu cad yahay oo haba yarate uusa hoos ku jirin
oo waxa runtaahoo lama dhaafaankaha ay tahay in aan dhaqaale loo hayn dhismaha iskuulka waadna wada ogtihiin intiina badan haddaan la isyeelyeelin xaqiiqadana lagama leexleexdo waxaa jira haddaan sheegnayna ma aha inaan horumarka deegaanka ka soo horjeedno dadkii hoggaaminayay baana laakiin runtu waa lagama raystaan intaa ma isla garanna akhyaar horta iskuulka dhismihiisu waa biyo kama dhibcaan waa la dhisayaa haddii golaha deegaanka ay na caawiyaan ama aanay na caawin taasi waa mid naga go'an haddaannu nahay dumarka ree isku filan odayaasha golaha waxaan idin sheegayaa inay naga go'an tahay dhismaha iskuulka deegaanka dhaqaale kama hadlaayo waxaan ku dadaalaynaa sidaan u fulin lahayn dhismaha iskuulka si ubadkeena ayna u seegin waxbarashada dhaqaale ama bixiya ama ha bixinina أنا بلان فايل لعته بين مشاكل هذا الكاس هذا كين تاجر هذا الكاس أنفايان هاي waan ka soo baaraan degnay wax walba oo aan idinkala kulanno inaan marnaba aanan ka tanaasulaynin in la hakiyo dhismaha iskuulka waayo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah haddii aanay idinka idin muuqan annaga ayay noo muuqataa cawaaqibka ka dhalan doona waxbarasho la'aanta ku dhacaysa ubadkeenna war yaa ilaahay yaqaan war Soomaali iyo dhaga adeeg war heedhaha dhisme iskuul la dhisay ma aha cayaar iyo ugu soo orod war hawlo badan baa loo baahan yahay midda ugu horeysana waxa weeye waxaa loo baahan yahay dhaqaale lagu fuliyo dhisme iskuul igu soo orod maaha mar walba dhaqaaluhu waa 1 oo waa 2 oo waa 3 meel aan dhaqaale oolin iskuul in la iska dhiso sheeka kuma imaan karo war aan isfahanno khilaafkuna iskuulna noo dhismaayo deegaankeenana waxba u qaban maayo waxaan dhageysan karnaa haddaad qirteen inay tahay arrin wanaagsan oo aadan qarash u hayn waayahay noo daaya anaga ayaa dhiseen iskuulka maxaaba hadal keenay waad ku mahadsantihiin inaad fikirkeen u riyaaqdeen dhaqaale male ayaad maanta dhan ku soo celcelinaysaan dhaqaale waayi mayno oo annaga ayaa u duubanayna sidii aan ku hirgelin lahayn mashruuca dhismaha iskuulka warsamow hal mid baan kuu sheegayaa waxa weeye in xaaskayga iyo gabadhayduba ay yihiin dad aad u madax adag oon waxba laga dhaadhicin karin war sharmaakow aan kula kaftamee taas aniga kuguma raacsani dhammaan dumarka Soomaaliyeed ayaa wada sidaan ah waa kuwa awood iyo go'aan adag leh waana lagu yaqaanaa haweenka Soomaaliyeed kuwa karti u saaxiib ah farsamo yaqaan kaalay halkan waxaan rabaa inaad biyaha ka jirtid halkan sare ee ceelka biyaha dhan miyaa halkan ka jira waayo haddii halkan aan ka jiro dadka bulshada halkan ku nool oo dhan biyo la'aan baa ku dhacaysa see la yeelayaa waa sida aan rabo ee biyaha ka jar meesha sare ee ceelka bilow shaqada hadda sida ugu dhaqsiyaha badan waayo anigu waan samaynayaa hawshaada wado farsamo yaqaan cidna kulama hadli karto ka jar biyaha dadkan waana wareeriyeen ee marun hanaga guuraani hadday biyaha waayaan ma sii deganaan karaan halkana waa sax aabbo ma sii joogi karaan halkan oo waa ay ka qaxayaan biila'aanna ma noolaan karaan wayna iskaga guurayaan deegaankan ceelkan shaqada ku socota maxay tahay war orodoo shaqo yeelo waxba kaama gelin arrinkaa meeshan iskaga tag waxaa halkan laga samaynayo dhul dad leeyihiin ayaad iska imaadeen ood iska degteen markaad ayaad iska murmaysaan oo iska yoomaysaan maxay tahay ujeedkiin war hooy kaale ceelkii ayaa biyahana laga jartee waryaa maxaa ceel ka samaynaysaan noo sheega biyaha ma jari kartid wallee rag waa isbaranayaa laysma yaqaanee waryaadheh iskaga taga meeshaan ceelkan shaqadiisa iyo ciddii wax ku samaynaysa midna waxba inkama gelin orda iska danaysta wax aad jari kartiin ma laha waa edabdarantihiin marna idinka yeelayno waxaad samaynaysaan waa xadgudub cad beeraheennii iyo hulkeennii intaad noogu timaadeen ayaad weliba noo hanjabaysaan meeshan ma sii joogi doontaan waanaad arki doontaan waxayd ku dhaca meel aan ugu socon halkan ma jirto waryaa ninkaaga biraha wato ceelka sidiisa ka dhig biyaha oo ka soo looxa ceelka ninkan farsamo yaqaanka ah iskaga taga agtiisa maxaad ka rabtaan wax edab iyo maamuus midna ma lihidin ordaayo meesha iskaga taga meesha xaalkeeda ma fiicna maad naga wadaan arka dadka halka ka soo socda war naga daaya biyaha aad xiraysaa naga daaya war biyaha xiriddooda naga daaya dadkan dagaal ayay diyaar u yihiin naga kaxeey meeshan waad u jeedaani war ha cabsanin cid kula hadli kartaa ma jirtee hawshaada wadan annagaa kula joogna farna laguma saari kareen car yaa isku dayaya in biyahana laga jaro
tan ka dhacda waa la yaabi doonaa soo socda dhaqsada waryaara hal koob oo biyo ah yaanan laga jarin waryaadhehe iskaga tega meeshaan annaga ayaa dhulkeenna iyo beeraheenna dhexdooda nagula dagaalaysaan miya weliba saxaankii la idin sameeyey ayaa waxaanoo idil inoo keenay annaga ayaana qaladka iska leh ordaayo meesha iskaga tega war dadkan wax la soo dhowaysta maaha meeqa jeer ayaan kuu digey oo lay maqli waayey waa kaase bal arag maantaannu isku joognaa car biyahan laga jaro war maxaa meeshan ka jira dhalinyaro dib uga baxa ceelka dhinaciisa maxaa dhacay oo buuqan keenay adeer waxay doonayaan in ceelka biyihiisana laga jaro nin farsamo yaqaana ayaa la socda waa kaas meesha taagan assalaamu calaykum wacalaykum assalaam sidee wax u jiraan bal waan yaabanahay anigu sidaad arkayso ayay waxu jiraan oday waad aragtaa waxa ay samaynayaan dadkan barakacayaasha ah ee deegaanka annaga nugu yimid ee weliba dulsaarka ah aniga iyo aadaya magaalada isku filan waxaana u tagahayaa oday warsame si uu arrintan xal ugu helo sidana si maaha dhalinyaro ma maqlaysaan waxaad yeeshaan dhalinyaro carada iyo xanaaqa iska daaya oo isdejiya nin walba xaafaddiisii ha ku laabto guryihiinni kala aada kii xoolo raacayana xoolihiis ha raacdo kii shaqa lahaana shaqadiisi dib ha ugu laabto dhib ma jiro arrinta waa la xalilhayaa waxaan kaa codsanayaa nin yahow adiguna in biyaha ceelka aad sii daysid ilaa xal laga gaarhayo ma la sii deynayo biyaha ceelka haa lama soo furayo biyahan dadkan sida u dhaqmaya miyaa biyahan u furaynaa ma yeelayno oo ma yeelayno arrinka sidana si fiican maaha in dadkii iyo xoolihii baad biyahaad ka xidhataan tani dhaqan maaha waa wax nagu cusub oo bilow ah haddii aad biyaha noo soo furi weydaan xeer ayay noqon doontaa ee ka jooga ayaan le halka hadalkaasi ka laabta hadalkaasi ma yeelayno waxa weeye meesha tanoo dad baa iska lah marka waxaad yeelaysaan ha ku tacdinina dhulka dad boodii kala dhexeeya marka waxaad yeelaysaan dagaal dadka u horseedin fidnana dadka looga horseedo marka waxaad yeelaysaan biyaha ceelka dadka aad ka xidhaysaan waa cunaqabatayn caadiya iska daaya walaalow waa ka waantooba waxaan nin baa hadda kahor wuxuu yidhi gabaygiisu ahaa abaalbure dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli lahaa beerka ka ogsooni marka waxa weeye xaajada tanu xaajo fiican maaha wax lagu kaco qof weyn ku kacla maaha marka waxaad yeelaysaan ka waantooba saana si maaha dadka barakacayshaana yaan lagu diganin oo dhibaato loo horseedin annagoo degaan kalaba lihin labada degaan waa isku mid degaanka iyagu iyo degaankiinu waxba kale ma ah waxaanaa dad wada dega oo daris ah weligeedna wax haddii dhinac uu roob ka doo dhinaca kale waa usoo daaq tegi jiray marka taasi waxay keenaysaa haddaad bilowdaan sheekadan maanta iyo dhibaatadan aad u horseedaysaan degaanka waa wax laga xumaado oo aan dad waaweyn aan ku dhaqmin xeereed noqon doontaa arrintan ka waantooba marka oo dadka biyaha usii daaya sidan si ma ah wax lagu dhaqmi karana ma aha annagana kuma dhaqanno idinkana waxaad ku dhaqantaan maaha yaan ka waantooba tan aan idiin sheegana waa taas nin weyn baanahay wax badan baan usoo joogay degaankana waan garanayaa waa degaankaygii aad baan u garanayaa degaankanu aniga iga sheekay maysaan aad baan u aqaan degaanka ee waxaad yeelaysaan biyaha aad ku sii daaya ummadda adeer aniga farsame yaqaankiiya mana u hoggaansamayo waxa ay dadkan ku kacayaan ee arxandarrada ah biyahana waan furaya cabitaan ayaan idiin keenayaa marwo ee bal dukaanka sii ogaada war cabitaan waxba ha noo doonin ee kaalay walaalay waxba ma rabnee haysdhibin walaalay waayahay shaah iyo qaxwo ayaan idiin keenayaa dukaanka ayay ku jiraan wax la soo iibinaya ma aha walaal marwo filsanay noo keen gaxwaha iyo shaaxa aniga gaxwo ayay iiga dhigan tahay galabta waa kuwaana bal hooya shaaha haye bal warrama hablow haa waa la fiican yahay haye waad ogeedeen shirkii golaha deegaanka waxa ka dhacay in odayaasha ayna yidhaahdeen kharash uma hayna iskuulka dhismihiisa haddaba waxaan rabaa inaan ka hadalno tallaabada xigta ee aan qaadayno haa waa sax diidmada golo deegaanka iyo walwalka gaba in iyo reednii nagan waayo ogayteen in iyo ha kana nagaayeen suurtagal mee dhismada iskuulka haa golaha deegaanka waa ay diideen dhismaha iskuulka weliba waa isku raaceen intooda meesha joogtay armay caqabad nagu noqotaa diidmadooda taasi caqabad ma aha aan wax idin fahamsiiyo shirkana waan ka caddeeyey aan idin xasuusiyo odayaashu way ku qanacsanaayeen fakarku aan u soo jeedinay ee dhismaha iskuulka waxayse ka biyadiidsanaayeen dhaqaalaha inay bixiyaan laakiin fikirka guud way u riyaaqeen sida aad maqlayseen inta joogtay kulanka ma garateen haa waa garane walaalayaal wax walwal ama jiro muhiimadda koowaad waa in ay golaha deegaanka og yihiin hawsha dhismaha iskuulka waana u sheegnay oo nama odhan karaan nalaguma soo wargelin golaha deegaanka ma diidana waa sida ay u sheegtay walaasheen nasra waxa ay ka cagajiidayeen dhaqaalaha ayay ahayd haddana dhaqaalo kama rabno sow maaha haa kama rabno ma ka rabno marka sidaas waa inaynu u fahannaa
waxba yaynaan ka welwelin golaha deegaanka ee aan horay uga soconno. waa sax waa fikir fiican. aan maba fadahaye aninan saada farsameeyqaan oo sano saacidow dhanaga korontada iyo biyogelinta iskuulka sababta lamadaasayba laga maarmaan waaye saysiin dhaatisan san argayta arrinkaasaytii waa war fiican waa sax may baan rajayahaye inti ama horan an sheega si iyo madaasayta in iska diyaariyan howlasayta muhiimka mahadsanid bishaaro. waxaa ballan igu ah inaan keeni doono dad mutadawiciin ah oo gaaraya ilaa 15 qof oo ka qayb qaata dhismaha iskuulka waa igu ballan. aniga waxaan doonayaa inaan la xiriiro oo aan u tago sarmaarke si aan uga soo qaado bulukeetiga iyo samiitada ama sibirka dhismaha. taas ayaa laygaga tasanayaa xaggayga. ma moodaa oo ma laga yaabaa in golaha deegaanka dhabtaa inayna annagu nahay? wallaahi waanu nahay. ballanteenu waa shaqo ballanteenu bulshooy shaqada muhiim ah ballanteenu waa shaqo aynu wada shaqaysanno. waan ku salaamay tahliil. waan kaa qaaday nasracadey iyo waran see tahay. waan kuu fiicanahay haye adiga xaalkaaga ka waran. lagama sheekeen karo aad iyo aad ayaan u wanaagsanahay dhib ma qabo waa heer sare xaaladdeeda alxamdulilah walaashay. maasha allah waan ku faraxsanahay. waxaan samaynayay oo aan isku toltolayay shabaagadan duugga ah si aan beri markaas ugu kalumaysto hadda waaba dhammeeyey ee warkaaga keen nasroy maxaa haysaa. waa heer sare sidaad u dayactirtay shabaagta waan ku faraxsanahay inaad howlahaaga si caadiya u wadato tahliilow. waad mahadsan tahay nasra waan kaaga mahadcelinayaa dhiirigelintaada wanaagsan ee naxariista ay ku dheehan tahay ee aad mar walba ergarab taagan tahay aad baad ugu mahadsan tahay. waa caadi aboowe waxaas ka badan ayaa laisku leeyahay waadna iga mudan tahay intaan iyo in ka badanba. haye bal nasroy magaalada isku filan maalmahan maxaa ka cusub iiga waran bal adigaa ku dhex jiro ka warhaye maxaa cusub oo idhaafana. tahliilow waxaa ka jira magaalada qorshe dib loogu dhisayo iskuul carruurta ay wax ku bartaan arrintaas ayaanu wadnay. waan gartay haye golaha deegaanka markaan arrinta dhismaha u sheegnay waxay nagu dheheen dhaqaale uma hayno dhismaha iskuulka sidaa darteed dumarkeena ayaa isxilqaannay oo gaarnay inaan dhisno iskuulka. maasha allah waa talo wanaagsan anigana mar kasta diyaar ayaan idin ahay waan idinkala qayb qaadanayaa dhismaha iskuulka ee carruurta loo dhisayo ee weliba ree isku filan kamana harayo hawshaas inta karaankayga ahna waan idinku garab taaganahay waana idinla dadaalayaa insha allah. waad mahadsan tahay waan filaya inaad ka qayb qaadanayso hawshaas loo qabanayo deegaanka isku filan. haa qasab waay waan ku qasbanahay inaan ka qayb qaato howlaha deegaanka nooc walba ay yihiin deegaankuna waa deegaankeenna horumarka deegaanka uu gaarana waa keenna carruurta dee wax baratana waa carruurteennu annagayna anfacayaan beri. mustaqbalka isku filan waa mid wanaagsan haddii ay sidan ku sii socoto maalinba maalinta ka dambaysa way sii horumaraysaa waana wax loo baahan yahay. waa runta abaayo waa mustaqbal ifaya haddii isku filan ay sidan ku sii socotana waa deegaan qani ah wax kasta ayaa laga helayaa waana laga shaqaysan karaa markaas waan ka faa'iidaynaa. waxaa igu ballana inaan sii wadaya ka shaqaynta mustaqbal qurxoon si kasta dhibaato ah aan ula kulmo aniga xaggayga ayaan ka hadlayaa tahliil aboowe. waa runtaa nasroy anigaba sida oo kale waan sii wadi doonaa dadaalkayga mana ka niyad jabi doono inaan gaarno mustaqbal wanaagsan iyo helitaanka rajadeenna mar haddii aan adiga garab kaa haystana wax weliba waa ii fudud yihiin waana samayn karaa waana samayn doonaa waxay celinayaana ma jiraan. igaga tasho inaan garabkaaga taaganahay weligaa ha niyad jabin tahliil isbeddel wanaagsan wuu imaanayaa dhibkana laguma waaro. walle waa sax dhibta laguma waare waa laga baxayaa waana runtaa dhibaatada mar kasta waa laga baxayaa waxaa loo baahan yahay oo keliya dadaal iyo weliba dulqaad badan teeda kale qofka hadduu mar haysto qof garab istaaga oo dhiirigelin u samaynaya garabkiisana mar kasta aanan ka baxayn wax weliba waa uu samayn karaa haddiiba caawintaankaas garabka uu helo. waa runtaa waxa aad sheegayso in kastoo nin geesiya ragu geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayee waa tii hore loo yidhi. waaw maasha allah nasara qof caadiya ma tiid wallaahi waxaad tahay iftiinka isku filan xaqiiqdii taasu ka hadal ma lahan. mahadsanid tahliil adiga xataa caadi ma tiid. fiiri firsan ayaa gadaal ka soo socota maxay halkan ka soo doonta laakiin. wallaahi ma ogi. tahliilow i dhegayso waan kuu sheegayaa oo weliba aan kaaga digayaa in aad isaga fogaato gabadha nasra ah haddaba waan kuu sheegay ma kugu ag arki karo ogow taas waa digniin aniga dhankayga kaaga timid. maxaa jira walaashay maxaa dhacayna. wiilow i dhegayso tahliilow aniga waa kula hadlay hadalna kuguma soo celcelinaayo waa digniintaasna inaad dhegtaada geliso madaxaaga geliso qalbigaaga iyo quluubtaada geliso allaha kugu duwo
nasro agteeda kuguma arki karo gabadhan sababta ugu dulmeeraysanaysa ma ii sheegi kartaa maalinta nasro kugu ag arko aniga iyo adiga naga dhex tafantaa sida ugu maxaa ku daba dhigay maxaa sida ugu daba socotaa adiga iyo nasro marnaba inaa isku kiin ag arka ma doonaayo waa haddaa wax maqlaysid nasro agteeda dambe haddii aan kugu arko aniga adiga inoo taalaa gabadhan agteeda dambe yaana kugu arkinayahow waxba aniga indhaha igu soo gubisaa ha ii soo fiirinin nasro agteeda dib dambe haddii aan kugu arko ogow wixii aniga adi naga dhex dhaco hadal dambe iskuguma imaanayna aniga adiga ficila iskugu imaanayna marka dambe bal u kaadi fidsanay maxaa kaa qaldan soo istaag adigana gabar yahay dhaqso kaalayna keen soo kac adiga ayaan kula hadlayaaye wallaahi weligay ma arkan amuurtaan oo kale tan oo kale waa ii dhiman tahay gabadha keliya aan magaaladan ka jeclahay isku filan waa gabadhan ayadiina waa laygu haystaa ma aqaan waxaa sameeyo laakiin aniga wax walboo dhaco nasar lagama yaabo inaan ka haro jaceylkeen wuu socon doonaa wax walbana waan u samayn doonaa suuragal maba aha inaad dadkan warkooda u daayo sidee markaan ula sheekaystaa say wakhti u qaadanaa ani ayada laakiin ma yeelaan wax walboo dhaco waxaan isku dayayaa inaan gabadhaas jaceylkeeda aan ku guulaysto wakhtina aan la qaato waan la yaaba wallaahi sheekaa meel fiican noo maraysay xaalad kale isaga jirnay mawduucii oo dhan naga qastabo muudkii dhan waa iga halaabanta waxaan u sheegaa garan lahaa gabadhi waa la yaabay qofkaanoo kale ilaahay kaama soo adeejiyo walle waa yaab annagaa yaab aragnay